السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa mahad iyo ammaan iska leh Allah Allahiina barbaariyay oo hadana wadadiisa toosan inoo sahlay oo hadana naga dhigay ummadii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. intaasi kadib walaalayaal waxaynu ka hadlaynaa cafiska iyo saamaxaadda waana wax looga baahan yahay qof waliba. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka meelo fara badan ayuu uga hadlay cafiska iyo wanaagiisa. Alla weyna subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. oo macnaheedu yahay u degdega dambi dhaafka rabbigiina xaqiisa ka ahaaday iyo janno uu balaceedu la mid yahay balaca cirarka iyo dhulka oo la isku daray. jannadaasi oo loo diyaariyay kuwa dhowrsada, kuwaas oo ah kuwa xoolahooda bixinaya marka ay dheefta haystaan iyo marka ay dhiban yihiinba. sidoo kale kuwaasi waa kuwa caradooda qarinaya ee dadka iska cafinaya. ilaahayna waa jecel yahay kuwaasi wanaagga samaynaya. sidoo kale Alla weyna subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku yiri suuratul baqara aayadda 109: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. oo macnaheedu yahay cafiya oo saamaxa ilaa uu Ilaahay amarkiisa la yimaado, waayo Alla waa mid wax kasta awooda. sidoo kale Alla weyna subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku yiri suuratul maa'ida aayadda 13: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. oo macnaheedu yahay iska cafi oo saamax, Ilaahay waa mid jecel kuwa wanaaga samaynaya. sidoo kale Alla weyna subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku yiri suuratul hijri aayadda 85: فاصفح الصفح الجميل. oo macnaheedu yahay cafi oo si hagaagsan u saamax. sidoo kale Alla weyna subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku yiri suuratul a'raaf aayadda 199: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. oo macnaheedu yahay cafiska qaado wanaagana far kana jeeso kuwa jaahiliinta ah. haddaba walaal, iska cafi kuwa aad jeceshahay iyo kuwa aad necab tahayba. haddaad rabto inay hoos imaadaan noloshaada qayb ka mid ah, iska cafi cadowgaaga, maxaa yeelay ma jiro shay uga ciriiri badan inaad iyaga iska cafiso. cafi si aad u raaxaysato. cafintu waxay u baahan tahay qalbi xoog badan oo yaqaana micnaha nolosha, oo iska xaqiro oo ismoogaysiiya qaladyada bani'aadamka. iska cafi kuwa ku xumeeya, weliba adigoo ka aarsan kara, maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaad ka helaysaa ajir. sidoo kale zamankani aad ay u yar yihiin kuwa wax cafiya. iska cafi, maxaa yeelay adiga ayaa ah midka ugu horreeya ee ka faa'iidaysanaya cafiskaasi, sababtoo ah waa waddo aad ku helayso jannada Rabbi. jannaduna waxay u baahan tahay qalbi qanacsan oo tawaaduc badan oona cafis badan, intaasina ku darsaday akhlaaq wanaagsan. iska cafi si aad u raaxaysato, ogowna inuu Allah subxaanahu wa ta'aala kuugu bedeli doono wax wanaagsan had iyo jeer. u noqo mid u naxariista kuwa dhulka jooga, adigana Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa kuu naxariisan doona. iska cafi dadka, maxaa yeelay cafiska wuxuu dhaqaa ama mayraa qalbiga bini'aadamka, wuxuuna cusboonaysiiyaa jacaylka. iska cafi dadka, maxaa yeelay cafiska waa midka horseeda nabadda iyo jacaylka, wuxuuna isku furaa qalbiyada labada qof. iska cafi dadka, maxaa yeelay cafisku wuxuu nuur ku shidaa qalbiyada kala fogaaday muddo, wuxuuna sifeeyaa wixii hore oo dhan. waa dhadhanka qalbiga iyo cusboonaysiinta qalbiyada.
qofka cafiska badanna uu ka naxariis badan yahay dadka kale wuuna ka karaama badan yahay haddaba noqo qof cafin badan maxaa yeelay Allah subxaanahu wa tacaala ba addoommadiisa markay dembi ka galaan oo ay u toobad keenaan wuu cafiyaa haddaba adigoo addoon miskiin ah sideedan u cafinaynin dadka waa walaalkiina yaasir mukhtaar oo idinla doonaya guusha labada daarood wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh